social networking ee ah in aad dadka la xiriirto. Tiknoolajiyadda iyo social mediahu waxay dadka u soo celiyeen awoodii ay lahaayeen. Maxaa yeelay maanta waa aragtay wax walba dunida ka dhaca ama wax khayra ama wax shar ha noqdaane 5 daqiiqo gudahood ama 5 sakan gudahoodba dadka dhan baa wada daawanaya. Qof baa wuxuu ku wadaagayaa mareegaha lagu xantamo. 60 kambani ayaa waxa la soo dhigayaa wixii dhacay. Sida haddii qof dhibaato loo geysto kale YouTube-ka la soo dhigayaa iyo Twitter-ka. Haddii wax khayra ay dhaceen oo kale ama wax shar ay dhaceen oo kale Instagram-ka waa la soo dhigayaa. Dadka qaarkood waxay soo dhigaan LinkedIn-ka, dad waxay soo dhigaan Snapchat-ka. meesha ugu badan oo wixii dhacay lagu falanqeeyana waa Facebook-ka. Balse YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat iyo Facebook maxay yihiin? Waxa loo yaqaanaa social media apps. Waa ababka social media haddii la af Soomaaliyeeyo waxaan u maleynayaa inuu noqonayo mareegaha lagu xantamo. Maxaa yeelay dadku waxay isweydaarsadaan fikiradaas ha noqdaan kuwa qaldan ama kuwa saxa. way isla xiriiraan, way isla hadlaan, way isla socdaan xaaladooda. Badanaa YouTube-ka waxa loo isticmaalaa sida u badan waxa loo isticmaalaa inaad wax ka fiiriso qof wixii ficil ahaan u sameynaya. Twitter-ka waxa badanaa lagala socdaa akhbaaraha caalamka wixii dhacay, waxyaabihii dhaco picture ku salaysan ayaa Instagram-ka lagala socdaa. LinkedIn-ka badanaa professional profile-ka iyo CV-ga iyo shaqo raadinta ayaa lagala socdaa iyo shirkadaha. Snapchat-ka badanaa videoyo iyo waxyaabo ay shirkaduhu soo gudbiyeen ayaa lagala socdaa ama shakhsiyaad caan ah. Facebook-gana waa meesha lagala xiriiro qoyska iyo dadka iyo saaxiibada iyo saaxiibo cusub lagu samaysto ee badanaa ah midka ugu isticmaalka badan. Marka lixdoodani waa ababka ugu awooda badan marka laga hadlayo social media ama mareegaha lagu xantamo. Google cadale waa maxay app waxa laga soo gaabiyay Googaaleysigaas waa inaad ku jawaabtaa. app waxa laga soo gaabiya application waa inaad dhihi kartaa. Googaaleysiga waa inaad taqaan. Marka technology-gu xataa Googaaleysi ayay leedahay warlibaax ama libaaxad. app haddii lagu yiraahdo application laga soo gaabsho dheh. badanaa marka laga hadlaya app oo qofka uu ku yiraahdo app ma isticmaashaa, wuxuu ka wadaa application-kaasi ma yahay mid ku jira smartphone-kaaga ama telefoonkaaga. Ababka waxay u ogolaadaan dadka isticmaala waxyaabo badan inay ku qabsadaan, sida inay maababka ku raadiyaan meeshay joogaan oo kale, inay wax ku xisaabiyaan oo kale, sida inta tilaabay qaadeen oo kale, ama inay footooyin inta ku qaadaan masawiro ay markaa masawiradan wax qurux badan ay ku daraan. Waxa aad iyo aad caan ugu ah arrintaas qof daqarra ku yaalaan sideedoo kale isku dayay inuu daqarkiisii qariyo makeup qatara isku yaalo asagoo isticmaalaya wama adraaka Snapchat. Fanacuudu billahi min sharri Snapchat. Marka app walba shar iyo khayr labadaba waa wataa. Appka ugu isticmaalka badan dunida ee sakan walba lagu jiro isticmaalkiisa ee dadka wax fiican oo mira dhal u qabtay waa appka ku keenay howlgabka shirkadihii telefoonada ee loo yaqaano WhatsApp. wuxuu howlgab ka dhigay WhatsApp-kii telefoonada inta la soo celiyo war hebelow halka baan joogaa ma maqlaysaa. Hadda waa telefoonka soo qabay hal mar waxa tiraahdaa waa ikana qofkii inaa wacdo ama maqal iyo muuqaal adigoo sameynaya video live adigoo ugu jira. wuxuu sameeyay waa WhatsApp wuxuu mataan leeyahay Facebook. maxaa yeelay WhatsApp iyo Instagram labadaba Facebook ayaa iska leh. sida WhatsApp-ka kale waxa u shaqeeya Messenger-ka kale qof waa ka wici kartaa, qof waa la xiriiri kartaa. Facebook waa sadar muuqda su'aal ka dhan oo waa taqaaniin wuxuu Facebook qabto. TikTok oo ayaantaa noqday runtii tababarka cusub ee ku salaysan akhlaaq darrada iyo ku salaysan qosolka micno la'aanta ah ayaa ayaantaa lagu soo gudbiyaa. oo TikTok waxyaabo badan oo faa'iidana waa leeyahay, balse waxa loo isticmaalaa sidii ugu qaldaneed runtii looguma talagelin sida dunida hadda u isticmaasho. kan ma aqaan wuxuu yahay, kanna ma aqaano. YouTube si fiican u taqaaniin oo waa meesha videoyada la isku soo gudbiyo ay suurtagal tahay inaad hadda aniga iga daawanayso. Spotify ayuu yahay loogadaanu oo mid loogu talagalay musiga. inta kalena ma aqaano. kana waa YouTube music, kana waa Netflix kaani waa app aad iyo aad u caalamisan ee filimaanta meesha inta la tago shirkadaha laga soo kireysan jiray DVD ama cajaladihii loo yaqaanay VHD waa laga baxo waxaas. dunida hadda waxay maraysaa streaming. dunida dacaladeeda meel walba ka joogto filimaantii ugu dambeeyay musalsaladii ugu dambeeyay ayaad kala soconaysaa. Netflix waa shirkadda ugu caansan marka laga hadlayo VOD ama video on demand. marka ababku marka maqasha app intaani waa anoo soo koobay balse billions ka badan yihiin ababka jira. marka app walba faa'iidadiisana waa leeyahay, shartiisana waa wataa. marka social media waa a good servant but a bad master. ay macnaheedu tahay tiknoolajiyadda intay adiga ku adoonsan lahayd inaad adigu adoonsato ayaa fiican. qof waxaad arkaysaa maanta dhan shaqo kale ma haya, maanta dhan telefoonkiisa ku mashquulsan yahay oo waxa laga yaabaa inuu waxbarashadiisii gabay, shaqadiisii gabay, mas'uuliyadiisii gabay, maanta dhan oo ku jiro social media ama mareegaha lagu xantamo.
marka tiknolojiyadu ha noqoto midaad sida fiican aad u isticmaasho yaysan noqon mid adiga waqtigaaga kaa qaada ku mashquul wax kuu dana ka mashquul wax kuu daran ayaan kugula talinayaa markaad isticmaalayso mareegaha lagu xantamo rukun haddaada ka ahayn rugta hurbad kusoo biir ee riix gambaleelka fideogan haddaad ka heshay fadlan falanqee faalla ka dhiibo dhambaal noo dhig aad nagu dhaliilayso ama aad nagu dhiiragelinayso labadaba waa soo dhaweynaahe waa kuu mahad celinayaa hoyga tababarka injineerada mustaqbalka janaalkiisa kusoo dhawaa mar labaad mahadsanid mudane ama marwo